Eebe waxa uu leeyahay 99 magac oo mid mooyee 98 kale ay yihiin magac tilmaameedyo ama sifooyin wax ka sheegaya falaadkiisa. Magaca samiga ah ee u gaarka ah guuluhu waa Alleh oo isaga mooyee aan cid kale lagu sheegi karin. halka Ilaah uu yahay magac guud oo lagu yeero wax kasta oo la caabudo kaasoo meel la jooga ereyga God ee Ingiriisiga ah. dhageystayaal qormada waxa aynu ku lafaguri doonaa asalka magaca Alleh iyo halka uu ka soo jeedo. ugu horeyn magacu lama koosan diinta islaamka oo ka hor intaan quraanku soo badagin carabtu waa ay taqaanay ama adeegsan jirtay waxaana cadayn inoogu filan magacyadii ay la bixi jirtay sida Cabdallah oo macnihiisu yahay adoon Alleh oo ah suubanaha aabihii. sidoo kale carabta aan muslimka ahayn ilaa hadeerto sidaas ayay magaca Eebe Alleh ugu yaqaanaan kutubtoodana ugu qoranta. dhageystayaal magaca Alleh waxa uu quraanka ku xusan yahay 3500 oo goor. waa magaca ugu horeeya magacyada Eebe ee quraanka lagu xusay sida ka muuqata aayadda ugu horeysa ee bisinka. bismillaahir rahmaanir rahiim. 30 aayadood ayaa ku bilaabma Alleh halka magaca ugu soo dhow oo ar-Rahmaan ah 2 aayadood ku bilaabmaan. magaca Alleh waxa uu koobsaday dhammaan macnayaasha iyo sifooyinka magacyada kale oo dhan. afafka kale ee saamiga ah ama Semitic ee Carabiga la baxda ah sida Cibriga oo ah afka Yuhuudda ee uu ku qoran yahay ahdiga hore Old Testament ama Tawraad waxa ku xusan El iyo Ilaaha. isna Aramaic oo ah afkii Nabi Ciise waxa ay ugu dhawaaqaan Allaha. Syriac oo la bax ah waxa iyaguna ugu dhawaaqaan Allaha. haddaba dhageystayaal qaryaanada islaamka ah ee isku dayay inay macneeyaan isla markaana qeexaan halka uu ka soo jeedo magacu waxay u kala baxeen 2 kooxood oo qolo kastaaba si u fasirtay. kooxda hore waxa ay ku doodeen in magacu yahay magac Carbeed oo laga soo dhiraandiriyay ereyga Ilaah oo la raaciyay qodobka aqoolka ama macrifada loo yaqaano ee alifka iyo laamka. dabadeedna dhawaaqii lumiyay alifka al-Ilaah alifka Ilaah ugu horeeya. sidaasna markii al iyo Ilaah la isku qabtay uu alifkii Ilaah ugu horeeyay lumay ereygii ku noqday Allah. inkasta oo kooxdani ku dadaashay in magaca ay carabeeyaan haddana waxa ka hortimi oo doodooda bursay arrimahan. alifka iyo laamka Allah ku jira waa mid ka tirsan abuurka ereyga waxaana aynu sidaa ku cadaynaynaa magac kasta oo Carabi ah haddii lagu hormariyo qurubka yeedhmada ama xarfunidaaga loo yaqaano waa yaade waxa qasab ah in alif iyo laamka la barabixiyo. tusaale ereyga ar-rajul marka yeedhmo la raaciyo waxa uu noqdaa yaa rajul. abidkiin ma noqdo yaa ar-rajul. halka Allah labada goorba aanu isbedelin oo uu marka yaa laga horeysiiyo yaa Allah alif iyo laamkii ay la socdaan. halka waxa inooga cadaatay in alifka iyo laamka Allah ku jira ay ka mid yihiin jiridiisa ee aanay ahayn kuwii qodobka ahaa. 2 shadka Allah la socda waxa loogu dhawaaqaa si culus tafkhiim oo ka duwan sida ereyada kale ee shadan ee Carabiga loogu dhawaaqo sida al-layl. 3 magaca Alleh waxa uu baalmaray dhammaan xeerarkii naxweed ee Carabiga oo marnaba ma yeesho tiro labaale muthanna ama wadar jamac. sidoo kale ma laha cayn lab iyo dhadig mudakkar iyo muannas halka ereyga Ilaah labada qaabba noqdo.
4 marnaba quraanku magaca looguma xusin qaabka macrifada ee al-leh qodobada aynu xusnay waxa ay burinayaan aragtida aaminsan in magacu yahay magac carbeed doorsoomay fikradda labaad oo ah talabada xaqiiqada u dhow waxa ay doodoodu tahay kolba haddii magacu baal maray xeerarkii afka Carabiga oo aanu la mid ahayn dhammaan ereyada kale ee carbeed waxay doodoodu ku soo gaabiyeen in magacu yahay mid guud oo ilaa nebi aadam nebiyadoo dhami yaqaaneen eebana ugu yaqaaneen Allah dhagaystayaal waxa laga yaabaa inaad isweydiinayso haddaan magacu magac carbeed ahayn afkee kale ayuu noqon karaa jawaabta oo kooban magacu waa magac Soomaaliyeed oo xeru dhalan ah hana yaabin ee wax yar ila dhugo qeexitaanadan ka hor inta aynaan halkaa ka gudbin waxa aboon in aynu sharaxaad kooban ka bixinno sida ereyadu u dhismaan afyahanada ku foogan aqoonta ereyeynta waa morphology-ga waxay ereyada u jajabiyaan dhambalo lagu sugayo salka ereyga dhambaladaasi waxay noqdaan laba midkood dhambal madax bannaan oo iskii erey u noqda free morpheme iyo dhambal sidkan oo aan gaar u istaagi karin bound morpheme tusaale ereyga ugbaad wuxuu ka kooban yahay laba dhambal oo ah ug iyo baad ug waa dhambal sidkan halka baad tahay dhambal madax bannaan oo iskii macno u yeelanaya si loo helo macnaha ereysaleedka sidkan waxa laga soo dhinaandhiriyaa macnaha ereyada salwadaagga ah tusaale ereysaleedka ingiriisiga ah ee istrag waa mid sidkan macnihiisuna yahay dhis sida laga soo dhinaandhiriyay ereyada uu ku jiro ee ay ka midka yihiin construction destruction instruction abstraction instrument structure ereyga alleh waa erey lamaan oo ka kooban labada dhambal ee al iyo leh ereyga leh waa dhambal tilmaan ah oo badiya ereyada dibkabe u noqda ereyga la raaciyana waxa uu siiyaa macno sheegaya lahaansho sida geel marka leh gadaal lagaga qodbo waxa uu qofka lagu magacaabo ku tusinayaa in aanu cayd ahayn uu leeyahay geel ayaan marka leh la raaciyo waxa uu noqdaa ayaan leh oo ina tusinaysaa qofkaasi inuu yahay qof ayaan leh Soomaalidu intaan maryaha dibadda laga keeno aana xidhan waxay xidhan jireen oo arradbeel u ahaa harag la midgeeyey oo inta la qurxiyey dhar ahaan loo qaadan jiray haddaba hooyada Soomaaliyeed iyadoo ilmaheeda aradnaan kala ordaysa waxa ay ugu magac bixin jirtay wiilka ay dhasho dhuule oo macnaheedu yahay kii dhuuga lahaa dhuugu waa maryaha dhuule marka waa qofkii dhuuga lahaa dhagaystayaal haddaynu qeexnay dhambalka ereyga qaybtiisa dambe oo ah leh bal imikana aan dhuganno macnaha qaybta hore oo ah al ereyga al waa erey salaadsidkan oo ku jira ereyo badan oo Soomaali ah oo ay ka mid yihiin aloog oo macnihiisu yahay wax abuurid waxaan hore u jirin oo la abuurayo waxay nooga muuqataa in la oogayo al oo ah wax cusub ama jiraal al oog si aynu macnaha ugu sii dhawaano bal aynu dhigano ereyadan kale ee sulwadaagga ah alab ged dabci ama caadi soo jireen ah aloos abuurid waxaan hore u jirin alan xubnaha ama jirida geedka qasabka aleen kooryar oo geela lagu jiro alkun curin waxaan hore u jirin alaal qof la qabsan og dad iyo dal hore aan u aqoon jirin dhagaystayaal haddii aad u fiirsato macnaha ereyadaas waxaad dareemaysaa in dhammaantoodba ay wadaagaan ereyga jir haddaba dhagaystayaal macnaha ereyga al waa jiraal existence sidaana waxa aynu ka soo dhiraandhirsannay macnaha ay wadaagaan ereyadaas kore haddaba magaca alleh ama alleh sida badi loogu dhawaaqo miyaanu ahayn jiraal oo dhan kii iska lahaa oo aanu eebbe ahayn al leh dhagaystayaal qormadan aynu ku eegaynay asalka magaca alleh intaas ayaynu ku soo afmeeraynaa inta aynu qormo kale ku kulmaynana waxaan idinku dhaafayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddaba si aanay waxba kugu dhaafin ku soo biir oo ka mid noqo bahda ardayga kasmo waxaad ku jisaa badhanka cas ee ay ku dul xadhan tahay subscribe
wixii talo ama aragti ah ee aad hayso fadlan noogu dhaaf qaybta hoose ee faallooyinka waad mahadsantihiin